ايش وحنا ليه اسخلدن وحنا خلديان لو خلدن راب كودنا كخليه شرم بوي خدري ها وايغا تلا ترام دولك اسكا داف كل نقطة انفكشن هسه هذا هو كولكشن سكوتر انجكشن waxaan ahay generation sida uu Sharma Boy u garbaashayo ama isagoo bilbiyeri joogo oo timaha jaranayo oo garbaash u geysanayo Kinka Arash muuqaalkan ama clipkan hore soo aragtay waa clip waqti hore laakiin just wuxuu ku cadeynaysaa in uu ahaa Kinka Arash markaas uu ku jiray waqtiyadaas oo ahaa waqtiyada aad iyo aad u quruxda badnaa ama waayihiisa fanka waqtiyadaas oo aad loo wada yaqaan ama Kinka Arash ama dhanka raabka aad iyo aad loogu xiisay jiray fanaankaas boyna ma ahan fanaan la yaqaan ama dadka saameyn fara badan ku leh waqti xaadirkaas ama dhanka fanka ama dhanka social media maantana levelku taagan yahay ama Kinka Arash levelku taagan yahay ama Kinki Sharma Boy levelku taagan yahay maanta isku mid maahan isku waqtina maahan markuu muuqaalkaas duubay ama clipkaas oo duubay oo ku karbaashayo Kinka Arashna isagana uu soo jawaabay isagoo ah Sharma Boy isagoo ah caan ama ay dadka aad iyo aad u yaqaanaan ama dadka ay aad saameyn fara badan ku leh bal aan clipka yar aan si fiican iskula daawan aan isla dhageysano كل نقطة انفكشن هسه هذا هو كولكشن سكوتر انجكشن waxaan ahay generation taagan waxa noqotay infection haystaada waa collection marka jawaabta waxay u tahay ama jawaabta uu bixinayo oo waqtigan oo isagoo ah saameyn fara badan ku leh Sharma Boy oo jawaab adsiiyay laakiin Sharma Boy markuu soo karbaashayo oo ninkan karbaashka waxaan u geysanayo Kinka Arash wuxuu ahaa markaas raabistaha ugu caansan ama waqtiyada dadka ugu caansanaa ama dadka ugu saameynta badnaa dhanka fanka ama aadka loo xiiseyn jiray marka isaga Kinka Arash wuu yaqaanay Sharma Boy waqtigaas uu karbaashayay ama heesii uu ku karbaashayay ama ereyada aad soo aragtay ama kelibida aad soo aragtay ayuu Sharma Boy ku karbaashayay Kinka Arash laakiin waqti xaadirkaas ma ahayn Kinka Arash qof yaqaan ama qof Sharma Boy aqoon buuxda u leh ama sida maanta loo wada yaqaano ama uu taageerayaasha faraha badan ku leeyahay ama dhanka social media saameynta fara badan ku leeyahay ama dhanka fankiisa oo aadka loo yaqaan ma ahayn ama qof saameyntaas leh marka jawaabta maanta ayuu siinaya ama waqti xaadirkan sanadkan oo ah 2020 ayuu jawaabtii ama karbaashkii ugu haboona oo la dhacay karbaashkan ama qaabkan oo clipka u soo duubay ama oo heesta u soo duubay ay Kinka Arash oo ah labada qofood in madaxa laga xiro qaabkaas ama naqshadaas waa ninkii fanaanka keenay waa fanaan Sharma Boy heestii oo ahayd 20 jir ka adag bir marka wax walba dadka 2020 in qof walba qofka kale uu sii koobiyo marka taasna waxa keeni kara ama ay sababi karo in uu qofkii uu haysan fikrado badan oo wax ku duubi karo ama fikrado badan oo noloshiisa ku hormaray